wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Burco ayaa raaligelin ka bixiyay hadal maalintii shalay ka soo yeedhay kaasi oo sheegaya in dayuuradii dawooyinka siday ay hay'adi soo dirtay wuxuuna sheegay in dawooyinkaasi uu soo diray wasiirka hawlaha guud isla markaana ay ku khaldeen dawooyin ay ka sugayeen hay'adda NRC wasiir xagla toosiye ayaa u mahadnaqay wasiirka hawlaha guud wuxuuna sheegay inuu ku dayasho mudan yahay waxaan rabaa halkan inaan ka soxo khalad shalay dhacay oo ku dhacay miscommunication sida madaxda kaleba sheegtay diyaarad bay wasaaradda caafimaadka sugaysay shalayto diyaaraddaas oo aan sugaynay ayaa waxaa noo timid diyaarad kale oo dawaa oo uu soo iibiyey wasiirka hawlaha guud cali marreexaan annana waxaan u qaadanay haddaanu wasaaradda caafimaadka nahay iyo haddaanu gobolka nahayba inay tahay tii aanu sugaynay arrintaasi khaladkaasi ku dhacday wasiirka waa u mahadnaqaynaa waa u hambalyeynayna waanu ka raali gelinaynaa khaladkaas sida miskiinimada ama mistayga dhacay aan lagu talagelin wasiirku runtii gurmad weyn buu soo geystay qayb weyn buu ka soo qaatay daawo ilaa 6 tan buu noo keenay waa u mahad celinaynaa warbaahintana waxaanu leenahay arrinkaasi khaladkaas ku dhacay saxa kuwa website-yada geliyay iyo kuwa ka baac mushtariga waxaanu leenahay kan noqdo saxa sidoo kale isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Yusuf Dirir iyo maayirka degmada Burco oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa dhankooda raaligelin ka bixiyay hadalkaasi shalay ka soo yeedhay mas'uuliyiinta wasaaradda waxayna sheegeen in xitaa haddii aan la sheegin uu wasiirku yahay mid ka soo dhex baxay wasiirada kale wasiir cali marreexaan boqolkiiba boqol aad baan ugu mahadnaqaynaa dawada uu soo gaarsiiyay shalayto aanu sida khaladka u turjumanay taasaan muddo dawo kaleeto aad buu ugu mahadsan boqolkiiba boqol waana ka cudur daaranaynaa waanu ka taxsadeenaa wixii shalayto aanu ismoodsiinay ee ahaa in diyaaraddu ay SRC soo dirtay waxaan leenahay wasiir haddii lagu sheego iyo haddii lagu sheelaba magaaladan Burco warkaaga iyo magacaagu meel wanaagsan ayuu joogaa meel sare uu joogaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa halkii aad ka soo saartay adduunka aad u hurtay ummadaada maanta liidata in ilaahay subxaanahu wa tacaala wax khayr leh kuugu bedelo waa ku mahadnaqaynaa khaladka dhacayna waa ka raali gelinaynaa wasiirada kale ee gobolka u dhashay ama qaranka Soomaaliland ba ka soo jeedo waxaan leenahay maanta cid kasta waan u baahanahay haddii aanu nahay gobolkii Togdheer cidii maanta wax nagu tarta ayuun baanu annaguna haddii ilaahay ka dhigo abaalgudi doono gurmud aad iyo aad u qiimo badan ka gashay hawshan shuman biyoodka ee gobolka ka dilaacday oo uu hormuud ka yahay wasiirka wasaaradda caafimaadka waxaan u mahadnaqaynaa isuduwaha gobolka runtii dawadan aad arkaysaan oo maanta diyaarad ay keentay berbera waa dawo wax badan ka tari doonta runtii iyadoo horena looga shaqeynay gobolka wasiirada ka shaqeeyayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa oo ka mid yahay wasiir cali marreexaan Shaafici Maxamed Ibrahim telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer